dadaalo nabadeed oo muddooyinkii u dambeeyay ergooyin nabadeed oo isugu jira isimo cuqal iyo waxgarad ka wadeen deegaanada Urfadhi iyo Ceegaaga ayaa watigii si koobaad maraya heer gabagaba waxaana kulan deegaanka Urfadhi ku wada yeeshay gudiyada labadii beelood ee shaqaqadu ku dhex martay deegaankaasi iyo ergadii nabadeynta ee dhexdhexaadinaysay beelahaasi iyadoona laga soo saaray qodobo ku meel gaar ah ilaa inta uu ka dhacayo heshiis rasmi ah dhinacba ka soo dhamaatay xabad joojintii iyo aqbalaadii nabaddu xafladan waxaan u qabanay inaanu isugu keeno guddigii labada beelood iyo ummadda intii waxgarad ahayd ee markhaati ay ka noqdaan xabad joojintii ayaanu ku soo artirnay in magaalada Urfadhi ay ka caaganaato ciidamada urursan ee labada beelood waxaanu samaynay guddi nabadgelyo oo reer Urfadhi ah oo sugaya amniga iyo la socodka dhaqdhaqaaqa labada beelood. 3 gogoshu waxay taalaa magaalada Saaxdheer. 4 muddada gogosha lagu tagayo waa 7 maalmood oo laga bilaabayo maalinta heshiiska la saxeexo. 5 waxaanu ka qabanay labada beelood gudiyo u xaajeeya. 6 wixii aan ku dhammaan wada hadal iyo sulux waxaa lagu galayaa shareecada islaamka. 7 waxaanu xukun iyo ganaaxyo ka ratinay jebinta heshiiska. qodobada nala soo jeediyay ee ay soo jeedisay ergada nabaddu waanu qaadanay waxaanu noo qaadanay si buuxdaan u qaadanay waan aqbalay intii naloo sheegay insha Allah bilmillahi kariim waa qaadanay waana yeelay isimada dhaqanka gobolada Sool iyo Buuhoole oo ku dhex jiray heshiisinta labadaasi beelood ayaa halkaasi ka hadlay iyagoona ku dheeraaday adkeynta nabadgelyada magaalada Urfadhi inaanu joogno oo aan isugu keenay labadii ardaasida la sheegay ee walaalaha ahaa ee tulka ahaa ee hagar iyo hayaag inaanu maanta nabadoodii aanu 14 cisho u fadhinay inaanu maanta halkaa ku soo xidhno qaybteedii koowaad oo sidii aad arkayseenba waxa weeye cuqaashi labada beelood iyo guddigii labada beelood ay halka nabad kaga dhawaaqeen xabad joojinna ku dhawaaqeen ciidamadii aan ku kala xirnay waa runtii wax aad iyo aad ilaahay loogu hamdi noqo aad iyo aad weedi ka mahad celinayna ilaahay khayr haydiisiyo qaybta labaad Saaxdheer baanu ka dhignay waxaan uga dhignayna annaga ugu waxyaalo badan markaanu qiimaynay soo laad hawshu ku wareejiseen waxaanu annagu siyaalo badan wax u qiimeeyna colaadaan aanu jecelahay mar dambe ayna soo noqon meesha kaliya kaga xilbixi karnaa Saaxdheer bay noqotay ilaahay ma aqbal ilaahay waa ku baryaynaa ma aqbal labada beelood ilmaha reeyaalo oo yaalo magaalada aliya caruurta haddii caruurtu waxay naga xumaysana wadanka ay naga xumaanayeen ilmaha waxay noo dhibay inoo soo qabta waan idinka mahadcelinaa aqbalkaadna aqbasheen intaa kadib waxa weeyaan halka kani waa madal iyo markhaati waxaasina in badan bay soo noqnoqdeen ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa tii ay ku soo afgoosay inay tani tahay kiin xigtaan kelmadda aydan baro waliba waxaan oran lahaa bal dhig walba shaq adu kaliga anta qalbigaaga gali cid iska kiin xigta iyo cid isaga kiin roon midina ma jirto go'aamadan meesha laga akhriyay waa go'aamo hordhaca oo waqtigoodu ku eg yahay inta go'aamada waaweyn ka soo baxayaan laga soo noqonayo meesha la yiraahdo meesha dadka lagu heshiisiinayo xabad joojinta la socdaan isbaayir beelay markaas ay dhacayaan oo go'aamo ka culus ayaa soo bixi doona labada dhinac oo walaalaha ay sheedaan ku dhex shaqeeyay walaalayaal inaad adkaysaan ballan ma qaadeen ballan ma tahay inaad qaadeen ay waxba ka soo noqonay labadana dhinacba ka baryayna walaalahooda isdileen Allah u nabdeeyo ciidanka amniga inoo sugaya dhalinyaradeenni iyo wiilasheenni iyo walaalaheen ah Allah barakeeyo wanaag mooyaane xumaan ilaahay noogama keeno
kuwa sidan inoogu shaqeeya mar walba allaha ka yeelo ilaahay saasaynu ka baryaynaa hawshan aynu hayno allaha faa'iideeyo liibaan qaran warbaahinta qaranka Somaliland Hurufadhi.